warqaddii gabowday ee 100 sano ka hor uu qoray xoghayihii arrimaha dibadda ee Ingiriiska Arthur Balfour waa midda weli hurinaysa dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo kooxaha xaquudirarka ee Falastiiniyiinta ee dhulkooda la haysto. labadii bisha November ee sanadkii 1917 ayaa warqadda tani ay soo baxday waxaana ku qornaa erayo kooban. waxay ahaayeen kaliya 67 eray laakiin ku cuslaa kafadaha miisaanka. dowladda Ingiriiska waxa ka go'an in carrada Falastiin laga hirgeliyo hoyga rasmiga ah ama waxa loogu yeeray dhulka hooyo oo ay yeelan doonaan dadka Yuhuudda ah. waxa kale oo ka go'an in la fududeeyo guusha arrintani laga gaadhayo ayaa lagu yidhi xaashiyaha boqol jirka ah ee loo yaqaano baaqa Balfour. nuxurku waxa uu ahaa in quwad reer Yurub ah ay u ballan qaaday dhaqdhaqaaqa Sahyuuniyadda waddan aanay iyagu lahayn oo 90% dadka ku nool ay yihiin dad Carab ah oo reer Falastiin ah. waa kan askari hore oo Israa'iili ah oo la weydiinayo in uu xasuusto inta qof ee uu dilay isaga oo jeesjeesayana waxa uu yidhi tani waa sheekada sida ay Israa'iil ku samaysantay. aan ku bilowno weydiinta caadiga ah maxay ahayd sababta uu Ingiriisku Yuhuudda ugu ballan qaaday dhul ay dad kale leeyihiin. jawaabta oo kooban sida iyaguba hore u yidhaahdeen boqortooyadu waa daroogo cadaabta laga keenay. xilliyadii lagu jiray dagaalweynihii koobaad ee dunida waxa ay ahayd amin Ingiriisku uu sameynayay ballanqaadyo tiro badan si uu dagaalka libin uga gaadho. kasakow in uu Yuhuudda u sheegay inuu siinayo dhulka reer Falastiin, Britain waxay wadamada Carabta ugu yaboohday in madax banaani dhammaystiran ay siin doonto haddii ay ka saacidaan la dagaalanka Cusmaaniyiinta oo xilligaasi dagaal xooggan uu kala dhaxeeyay. Carabtu waxa ay qaadatay baaqa Ingiriiska. waxa ay noqotay wax lagu sheekaysto oo xitaa Hollywoodku ay filimaan ka sameeyaan. ma loo fuliyay ballanqaadkoodii ahaa in ay noqonayaan dal madax bannaan mise dunida Carabtu waxa ay noqotay 10 dowladood oo qaarkood ay yihiin col daahood go'ay? waa weydiin ay taariikhdu ka jawaabtay. bil kadib markii ay soo baxday warqadda Balfour, ciidamada Ingiriisku waxa ay qabsadeen dhulka Falastiin iyaga oo soo afjaray xukunka 400 oo sano jiray ee Cusmaaniyiintu halkaasi ay ku joogeen. dadka dhulkooda la qabsaday waxa ay ahaayeen dad Carab ah oo intooda badanna muslimiin ah, laakiin waxaa jiray dad Kristan iyo Yuhuud ah oo laga tiro badan yahay isla markaana halkaasi ku nool. xilligaasi waxa uu ahaa mid Yuhuudda ku nool caalamka gaar ahaan qaaradda Yurub ay haysteen dhibaatooyin badan. qaybtood waxa ay dareensanayeen in Falastiin ay tahay wadada kaliya ee lagu badbaadi karo xilligan. fikradda Yuhuudda loogu beeray carrada Falastiin waxa loo yaqaanaa aragtida Sahyuuniyadda. waa aragtida la rumaysan yahay in qayb weyn ay ka qaadatay samaynta dowlad Yuhuudeed oo dhulka Carbeed laga hirgeliyo. Theodor Herzl waxa uu dhashay dalka Austria, waa ninka ugu muhiimsan ee sheekadan ku jira. sanadkii 1896 ayaa waxa uu daabacay buuggiisa uu bixiyay Der Judenstaat, The Jewish State ama dowladda Yuhuudda. xaashiyo kamida buuggiisa waxa uu ku qoray sida Yuhuudda ku nool qaaradda Yurub ay uga badbaadi karaan faquuqa lagu hayo ama waxa xilligaasi ugu yeedhay antisemitism. ma aha kaliya in ay ka cararaan qaaradda Yurub ayaa uu yidhi, balse waa in ay helaan dal iyaga u gaara oo ay xaq u leeyihiin. qoraal kaliya kuma ekaanin ee sanadkii xigay waxa uu shir ku qabtay magaalada Basel ee dalka Switzerland. waxa uu ahaa kulankii ugu horreeyay ay yeeshaan Koongareeska Sahyuuniyadda. isaga iyo ka soo qaybgalayaashu waxay isku raaceen in Yuhuudda deegaan looga sameeyo dhulka Falastiin iyo waliba in la buunbuuniyo aragtida deegaamaynta. tallaabadaasi waxa ay horseeday in la dardargeliyo dhaqdhaqaaqa Sahyuuniyadda. waxaa la bilaabay dhaqaale ururinta dadka Israa'iiliyiinta ah oo la rabo in ay u guuraan dal aanay lahayn balse la rabo in xoog lagu dejiyo. waxaana shirkadaha loogu baaqay inay dhul badan iibsadaan iyo waliba in dhaqdhaqaaqu uu wakiilo ku yeesho dalal badan oo caalamka ah. markii uu kulankaasi dhammaaday, Herzl waxa uu buuggiisa xusuus qorka ku qoray magaalada Basel waxa aan ka aasaasnay dowlad Yuhuuddu ay leedahay 5 sano gudahood ama 50 sano waxa ay noqon doontaa wax qof kasta uu ku baraarugsanaado. dhacdooyinkaasi waxa ay soo dadejiyeen in dowladaha qaarkood nidaamka Sahyuuniyadda ay taageeraan, haba ugu horeyso Britain oo madaxdeedu xilligaasi ay si weyn u garab istaagtay. qaarkood waxa ay ku taageereen sababo aan wax badan laga ogeyn. dadka taageersan waxaa ka mid ahaa ra'iisul wasaarihii xilligaasi ee Ingiriiska Lloyd George iyo waliba xogayihiisii arrimaha dibadda. markana aynu eegno tallaabooyinka ay Britain qaaday si Yuhuudda ay u dejiso dhulka Falastiin. Ingiriisku waxa uu soo saaray axdi qarameed shaqaynayay sanadkii 1923 ilaa iyo sanadkii 1948. hirar qaxooti Yuhuud ah oo laga soo ururiyay adduunka dacaladiisa ayaa la dejiyay dhulka Falastiin iyada oo uu ahaa qorshe muddo dheer laga shaqaynayay. marnaba talada lagama qayb galin dadka Falastiiniyiinta ee dhulkooda loogu yimi.
waxaa halkaasi laga sameeyay goobo waxbarasho, warshado iyo xitaa maleeshiyaad loo bixiyay Haganah oo hogaaminayo David Ben-Gurion oo markii dambe noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee Israa'iil yeelato. Falastiiniyiinta waxa uu cadaatay Ingiriisku in aanu xornimo u soo wadin, balse taasi beddelkeeda uu ka shaqeynayo sidii ciidooda loogu beeri lahaa dad kale oo qalaad. Sanadkii 1936 waxa deegaanada Falastiin lagu soo rogay go'doomin, xarig, dil iyo ciqaaboodyo kala duwan. dhacdooyinkaasi waxa ay keeneen in Falastiiniyiinta oo dhulkooda difaacanaya ay bilaabaan weeraro ay ku bartilmaameedsanayaan ciidamada Ingiriiska iyo kuwa Yuhuudda ee duulaanka ah. waxa ay noqotay in Ingiriisku qorshihiisa wax badan ka bedelo, isla markaana uu sameeyo komishanka loogu magac daray Beale Commission, kaasi oo qorshihiisu ahaa in la sameeyo khariidad cusub oo kala qaybinaysa Falastiiniyiinta dhulkooda loogu yimi iyo maamulka Yuhuudda ee halkaasi lagu beerayo. si qorshahaasi uu suurtagal noqdo maadaama Falastiiniyiintu ay yihiin kuwa ugu badan ee deegaamadaasi ku nool, waxa qorshe ahaan loo qaatay in si qasab ah looga barakiciyo dad gaadhaya 250,000 oo Falastiiniyiin ah. dagaalkii labaad ee adduunka, in ka badan 60 milyan oo qof ayaa u galaaftay dagaalweynihii labaad ee adduunka, waxaana la sheegayaa in ay jireen 6 milyan oo Yuhuud ah kuwaasi oo ku baxay xeryihii dhimashada ee Naasiga. Yuhuud badan oo xilligaasi ka carartay qaaradda Yurub ayaa waxa ay badbaado bideen dhulka Falastiiniyiinta ee la haysto. intii ay Yuhuuddu ku hoos jireen xukunka Ingiriiska hogaaminayo, waxa lagu tilmaamay dadka deegaanadaasi lagu beeray ee Yuhuudda in tir ahaan ay gaadhayaan 10 ilaa 30 boqolkiiba, iyaga oo qabsaday boqolleyda 6 ka mid ah dhulka ay duulaanka ku yimaadeen. waxa ay horumar ka sameeyeen dhinaca ciidamada, si ka duwan Falastiiniyiinta oo laga hor istaagay horumarinta maamulka iyo militariga, inkasta oo weli ay ahaayeen kuwa ugu badan ee ku nool deegaanadaasi. bishii November ee sanadkii 1947 Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa waxa ay go'aamisay qorshe noociisu ahaa mid la yaab leh, kaasi oo lagu kala jarayo dhulka Falastiiniyiinta. qorshahaasi waxa uu ahaa in 55 boqolkiiba dhulka Falastiin loo aqoonsado dawlad ay Yuhuuddu leedahay, laakiin qaramada midoobay marnaba ma qeexi karin sida ay Yuhuuddu ku yeelan karto dhulka baaxaddaas leh oo kala badh dadka ku nool dhulka Yuhuudda la siinayo ay Falastiiniyiin yihiin. la yaab ma ahayn in Falastiin iyo Carabtuba ay si weyn uga hor yimaadaan qorshaha cusub ee qaramada midoobay. maamulka Yuhuuddu waxa ay bilaabeen horumarinta ciidamadooda si ay u sugaan soo dibeenaadka ay qaramada midoobay hadiyadda u siisay. qorshe kalena waxa uu ahaa in ay ka shaqaysay si kasta oo loo dhimi karo tirada dadka Falastiiniyiinta ah ee maamulkooda ku hoos nool. magaalooyinka qaarkood sida magaalada Haifa waxa ay ka bilaabeen barakac dadweyne oo badheer ah. aasaaskii Israa'iil, markii uu dhamaaday axdi qarameedkii Ingiriiska ee 15 bisha May sanadkii 1948, dadka Falastiiniyiinta ah ee lagu qasbay in ay guryahooda ka qaxaan waxa lagu sheegay in tiro ahaan ay dhamaayeen 250,000 oo qof. habeenkii kaasi ka horeeyay, David Ben-Gurion waxa uu iclaamiyay dawlad lagu magacaabo Israa'iil oo isagu ka yahay ra'iisul wasaaraheedii koobaad. markii uu go'aankani ku dhawaaqayay, waxa uu hoos taagnaa darbi uu ku sawiran yahay Herzl oo qorshahani dejiyay 51 sano ka hor. hase yeeshee dagaalku halkaasi kuma ekaanin. askar tiro badan oo ka socota dalalka Carbeed ayaa gudaha u galay dhulka Falastiin, laakiin xilligani waxay ahayd goor Israa'iil ay xoogaysatay oo ay horumarisay ciidamadeeda si ka duwan kuwa Carabta, isla markaana ay heshay saaxiibo badan oo reer Yurub ah. Israa'iil waxa uu suurto gashay in dagaalkaasi ay guul ka gaadho iyada oo qabsatay magaalooyin kale oo ka baxsan dhulka ay qaramada midoobay hore ugu astaysay. qaar ka mid ah magaalooyinkaasi waxa laga bedelay magacyada Carabiga ah iyada oo loo bixiyay magacyo kale oo afka Cibriga ah. 3 meelood oo meel dadka Falastiiniyiinta ah waxa lagu sheegay in ay qaxooti noqdeen. tan ugu daran ee la xasuusan yahayna waxa ay ahayd dhacdada loo bixiyay Nakhba ama masiibo. magaalooyin badan waxa ay noqdeen kuwa haawanaya oo aan dad ku noolayn. waxa dhacday 78 boqolkiiba dhulka Falastiiniyiintu in uu gacanta u galay dawladda Yuhuudda. sanadkii 1967 Israa'iil waxay qabsatay marinka Gaza iyo daanta galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta. ugu dambeyntiina dadka deegaanka iyo kooxaha iska caabintu waxay muddo dheer dagaal kala soo horjeedeen ciidamada Israa'iil ee duulaanka ah. si kasta oo awood ahaan looga xoog bato qadiyadda reer Falastiin waa mid aan dabkeedu marnaba damin, waxaana taasi tusaale nool u ah wixii dhacay maalintii Sabtidii ee toddobaadkan. ma ogtahay Faras Taxi in asbuuc walba ka samayn kartid lacag 2,000 taaban new offer. haddii aad qaadato 10 trip waxaad helaysaa 500 oo Faras Maylis ah. haddii aad qaadato 15 trip waxaad helaysaa 1,000 Faras Maylis ah, ama haddii aad qaadato 30 trip waxaad helaysaa 2,000 oo Faras Maylis ah. haddaba la soo deg abka Faras.